السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada waa walaashii Naciimo online iyo video cusub. Marka waxay noo tahay subax, marka quraacaan sameynayaa, marka quraac xilliga aan diyaarinaya la gaar quraacda. Hadda kafeega biyaha dabka sii saaray. Marka maanta waxaan sameynayaa quraacdaas waxaa laga sameynayaa mashaariyo. Marka daawasho wanaagsan insha Allah. Marka miiskaan diyaariyay, marka ciyaalka inta jikada imaanin waa ka soo hormaray jikada si aan u diyaariyo quraacda diyaar ay u imaadaan habeenka sii weydiiyaa waxay cunayaan. Marka maxaan ku dhahay dan anagoo isku og subaxdii marka aan jikada uga soo hormaro oo u sii diyaara quraacda diyaar ah ayagoo waxay soo galeen jikada ayagoo diyaar ah oo maxaan ku dhahay ready ah qof walba oo maxay inuu quraacda kaliya u harsan tahay quraac kadibna la iska baashaala kadibna waa baxnaa. Marka hadda ayaga u sii diyaarinaya miiska u sii saaraya. Marka hadda waxa u jeedaan mashaariyadii iyo mango iyo waxa waaye blueberry oo frozen ah iyo chia seed. Dad badan ay soo weydiiyeen snapka dhan chia seed maxaa ka wada ama maxaa u isticmaasha noocyo badan oo isticmaali kartaa chia seedka yogurt ku darsan kartaa mashaariya ku darsan kartaa smoothie ku darsan kartaa marka vitamin D ah ka helaysaa especially xilliga qaboobaha winterka aad ku anfacaya marka waxaan kula talinayaa inaad isticmaashid hadda isticmaali jirin. Marka insha Allah daawasho wanaagsan videoga. Marka hadda malabaan dusha uga darayaa mashaarida waa is really simple 5 minutes waxa waa quick waa maxaan ku dhahaa wax ugu fudud la sameeyo waaye adigoo shax dabka soo tuuraysa la mid tahay waa fudeed maasha Allah caafimaadkana waa u fiican tahay caruurtana way jecel yihiin caruurtii. Marka waa kasta wanaagsan subax waxaan maxay quraac uga dhigaa hadda subax isku nooca ku quraacna subaxna qof walba wuxuu ku cunaa wixii markaas uu xiiseenayo uu jecel yahay oo markaas doqiis ah. marka maanta mashaariid sameyna laakiin way jecel yihiin waxay dhahaan hooyo maasha Allah macaan waaye mashaariid aad uga helaan. Marka daawasho wanaagsan insha Allah. Tan hadda waxa ku jiro looska macnaha oo lagu daro yogurt iyo everything ku darsan kartid. Hadda kafeega sameysanaya marka kafeega mashiinka maanta ku sameynay subaxda hore mostly kafeega mashiinka ku sameeyay just easy as quick as easy ma dhihi jiray si dhaqsi ah marka si aan u daahin ilmahana waqti aan ula qaato. Marka insha Allah waxaan sameynaa wax walba wax fudud aan sameynaa insha Allah. marka akaliga tahay oo macnaha ilmuhu kula joogin oo kale waqti fiican haysta waxa doonta sameeyay laakiin marka ilmuhu kula joogan you have to give a time wayna ciyaalka waqti la qaadatid insha Allah. kafeega sokor ma ku darsado haddii aad jeceshahay sokor ku darsan kartaa adiga. marka bacda quraac banaanka soo aaday maanta waxa waa second day waa maalintii labaad walaashiya waxay haystaa talaalka oo maxaa ku dhahay covid-19 ama maxaa la talaalkii vaccine soo qaadanaysaa aan raacay. marka maxaan ku dhahaa magaalada marina hadda dhinacaan hadda cidlo waaye maxaan ku dhahaa ma aha wax oo macnaha traffic badan ma haysto. marka saa u jeedaan jawigu qurux badan maanta maasha Allah roob ma ahan qorax oo zaid ma jirto laakiin hawo macaan jirto maasha Allah caadi ma ahan. magaalada qurux samara maxaan ku dhahay noo bilaabanayo xilliga samarka la galay inkastoo sometimes roob iska imaanayo oo la filanaynin. marka sometimes roobku yar yahay marka laakiin mostly roobku da'itaankiisa badan. marka maasha Allah talaalka wada cabsi ay dhawaa cabsanaysaa marka alxamdulillah laakiin Ilaahay uu soo fududeeyay maasha Allah waxa ma ku noqonin laakiin dad badan ama waxa ku dhahay iga sheekayso gabadha meesha ku dhacday xitaa hadda starku soo marnay meesha talaalka ka soo baxnay starku soo imaanay meesha maxay aan ka soo cabnay cabitaano iyo kafee. hadda waxa waaye xilliga oo cashada waxaan sameynayaa vegetable qudaartaas ovenka noo gelinaya marka geliyo adiga cusbo hadda ku daraya hadda waxa ka hor ku daraya filfil ahayd olive oil korka uga daadinaya marka 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo just waa karooto iyo broccoli iyo asparagus iyo maxaa ku dhahaa zucchini kala adina waxa la dhaho laakiin aad u jecelahay wuu fiican yahay. marka insha Allah ovenka gelinaya waxay kadib waa ka soo bixinaa hadii Ilaahay yiraahdo daawasho wanaagsan. marka hadda diyaar waa qudaartii oo ka soo bixiyay ovenka maxaan ku dhahaa marka waxa u jeedaan waxa meesha noo saaran hilib yar grill ah iyo maxaan ku dhahaa qamadiga oo maxaan ku dhahaa qamadiga oo eg tahay qamadina waa la dhahaa magac kale oo haysta oo bulgur maxaan ku dhahaa iyo grill cheese waaye halloumi cheese Allah waxa gees ka saaran cadka ah qudaarta dusha ka sii saaraya. marka wax yar oo simple ah oo caafimaadkan u wanaagsan oo maxaan ku dhahaa fudeed ah
meesha dhib ma la rabo wax yar oo fudud oo simple ah aan iska sameynaa insha Allah wax dhib kugu dhaqanaan fiicna hadda wax yar soos oo sokor ku soo daray geeskaas waxa waaye sooski intan waxa uu daray shishid yara geeska uga jiro ujeedaan sa arkaysaan marka hadda waxa la gaaray waa maxaan ku dhahaa next day waaye cashaa sameynaya waxay ku saabsantaa baasto baastadan waxa waaye iyadana easy waaye aad u fiican tahay marka insha Allah daawasho wanaagsan hadda ka horna soo geliyaan jecla youtube-ka markaana waa kana markii labaad waaye waa qudaar yar foorno oven gelinaysaa waa yaanyo iyo hadda waxa ujeedaan waa red pesto waaye waa suugo diyaar ah marka ayada green iyo iyada waxa jirto gaduudka labada waa isticmaala hadda laakiin maanta tan gaduudka isticmaala baastadii soo kariyay waa taas ujeedaan marka hadda marka ovenka waa kasoo bixiyay qudaartii waxaan ku mixeenayaa ama ku darayaa baastadii kadib wax yar kadib hadana ovenka ku celinaya ama foornada wax yar oo maxaa ku dhahaa waxaan ka qaadayaa geedka yar oo baasta maxayd oo yaanyada marka geedka kasoo baxdo kaleete kan yar ku dhegan aan ka qaadayaa baastadan ku darayaa ovenka gelinayaa red pestogan ku darayaa wax yar adiga 5 minutes kadib waa kasoo bixinayaa ready to eat wallahi ma sha Allah macaan lagama sheekan karo caadi ma carruurtu jecel yihiin dadka way sidoo kaleete marka haddii aad hore u tijaabin waxa ka cabsan inaad tijaabisid waxaa rajaynaynaa aad uga heli doonto insha Allah marka hadda red pestoga ku darayaa suugada diyaarka ah haddii wax ka soo haraan fridge ka gasho insha Allah haddii wax ka soo harin ama ka soo harinbo banaanka dhigin insha Allah mar hadaa furtid marka hadda isku dardarayaa si geeska gees isku gaargaarto insha Allah ovenka gelinaa mar dhow marka ma sha Allah waxa way casho aan caadi ahayn ku dhahay ama qadan ka dhigi kartaa sida markaas aad jeceshaa adiga xilli markaas aad joogtay ku xiran tahay marka waa kaasa dhinac walba waa inaan kasoo rogaa ovenka hadda gelinaa mar dhow insha Allah dib ugu sii celinayaa si macnaha maxaan ku dhahaa ma sha Allah ujeedaa ku soo saar ovenkii saasi ku soo baxday marka ma sha Allah lagu sheekan karo waxa waaye maalintii xigta waa hadana pizza waaye pizzahan ujeedaan inaba caadi maahan waxa ku dhahay carruurta soo doqday ma sha Allah macaan u ahaa ma sha Allah wuxuu isku jiro chicken iyo maxaa ku dhahay mix waxa la dhahaa pizza oo qudaarna ku jirtaa beef ku jira iyo chicken marka ma sha Allah aad u macaan badanta ayadana caadi maahan marka ma sha Allah maxaan ku dhahay cheese kana ku badno ma sha Allah caadi maahan marka waa kaasa marka waa kaasa ma sha Allah caadi maahan waxa kale rabo inaan siiyo video aan ka sameeyay laakiin uma jeedo video meeshu aaday alaabaan duubay laakiin hadda dhalooyinka aad ujeedaan helay qayb kamid ah marka dhalooyinkaas waxa uu talagal inaan ku shubto waxyaabaha jikada u isticmaalo maxay ahayd aan ku shubto marka ma sha Allah caadi ma Amazon ka dalbaday insha Allah ka dalban kartaa haddii aad jeceshahay adigana waxa lix xab ka kooban yihiin waxay wataan warqadii maxaan dhahaa magaca ku qoraysid wixii markaas aad ku shubaysid aad dusha ugu qoraysid iyo qalinkoodii marka hadda ujeedaa waa maalin kaleeto waaye baraf iyo roob hadda aan ku dhahay inaba caadi maahan marka banaanka loo socdaa waxa la socdaa McDonald's hal imaaday hadda maxaa ku dhahaa wax yar oo casriye ah laga cunaya insha Allah marka aad ma santahay daawasho wanaagsan soo dhawaada walaalayaal subscribe and share assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh